ilmuhu gacanta wuxuu la soo galay waa halkan ilaa uu soo gaaray ilaa barta wax ridqaysa kadib gacanta inta hore mooyaane gacantan intan maxay tahay wax ku qabsanoo dhamay waxay raacday mashiinka muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaana inta lagu guda jiray bishan barakaysan ee Ramadaanta waxaa soo badanaya carruurta yaryar ee dhaawacyada halista ah kala kulma mishiinada yaryar ee guryaha dhexdooda lagu haysto laguna ridqo khudaarta hilibka loo yaqaan duqadda iyo waxyaabaha yaryar ee daruuriga loo arko toddobaadyadii la soo dhaafay waxa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa la keenay carruur dhaawacyo xun soo gaadheen kadib markii ay gacmaha la galeen mishiinka korontada ku shaqeeya ee khudaarta taas oo sababay in carruurta yaryar lagu sameeyo qaliin lagaga jaray qaybo kamid ah gacmahooga qaar kamid ah waalidiinta carruurta yaryar ee dhaawacyadu soo gaadheen oo ay naxdin iyo murugo badan ay ka muuqato ayaanu kula kulannay cisbitaalka guud ee Hargeysa waxaana inooga warameen sida ay dhibaatadu u soo gaadhay ubadkooda magacaygu waa Yaan Ibrahim Xasan Ridaash marka dhibtu waxay u soo gaadhay guriga ayaan ku hayay gurigaana ku haya ayaan duqadan ridqay dibadana dabayl baa ka dhacaysay awal dibadan ku ridqa jiray marka ana toon yar ku fooraray gacanta gelisay markaan kaaroogi alaabtii oo dhan ridqay ay gacanta gelisay markii gacanta gelisay ay qayliday baan ka fujin kari waayay naxdintii baan kor u qaaday iyadoo ridqaysa marka makiinadii markaan furay markaan feeshtii ka baqtiyay baan dhulka dhigay iyadina dhulkaan dhigay markaan furay waxa arkaydo farheedi ka soo dhacayaan meesha duqad ka soo baxayso marka argagax baan igu dhaco mid doorsoomay goor la qalay warmaan hayn subax nimadii dambe ay la keenay iyadoo gacantii laga jaray 9 cishan joognay imika ma sha Allah waliga dhakhtar la mid ma arag xataa habeenkii haduu ilmuhu in yar haduu ilmuhu yar ooyo way ku soo kacayaan wuxuu baahayay bisiinayaan waxaan farayaa inay dib ka foojignaadaan dhibta anaga nagu dhacday saan ciyalkooda ugu dhicin oo maanta faraha looga jarin in iyaguna makiinada iska daayaan suuqa hadii ka soo dhaqan karaan ay ka soo dhaqaan hadii kan la duqada iska daayaan anu magaceedan ka xanaaqayaa imika والله الحمد لله dhawaato waxa dhacday sabtidii iyadoo makiinada alaabtii ay diyaarsanay farahana way gelisay fanti marka saasay ugu dhacday wallahi ana si fiican ma weegi karo wallahi ma fiirin ma sheegay laakiin doctorka ayaa ka sheegi kara afar baan u maleynay laakiin wallahi waa qadar lama celin karo ma fahanti laakiin intii tabarta wala iska dadaala insha Allah bidna Allah karim anigu jikadan joog baashan daarday tahay marka mishiinkii fiishtu ku jiray iyada galisi fiishku ma jiray iyada galisi haddaba si aanu xogo dheeraad ah uga helno dhibaatooyinka ay carruurtan yaryar kala kulmaan mishiinadan wax lagu ridqo waxaanu xog waraysi la yeelanay Dr. Maxamed Xawaadle oo ka howlgala qaybta qaliinka ee cisbitaalka guud ee Hargeysa annaga intan dambe waxa aad noogu batay oo imika labadii wiigay isku xigay soo maray labada kees waxa ayna laba qof oo markaa midna 3 jir bay ahayd midna waxa ahayd 8 jir labada waxa soo gaaray dhibaato ka timi waxyaabaha wax ku ridqno oo gaar ahaan waliba bisha Ramadaan aad baa isticmaalkoodu u badan yahay marka waxyaabaha wax lagu ridqo qaarkood waa qaar maan wala haayano gacanta wax lagu qaban jiray kuwaas dhibaatada keenan way keeni karaan dhibaato laakiin markay imika la eego waxa ka dhibaato badan kuwa dabka la geliyo labada carruur waxa dhibka keenay waxaan gacanta waxa la galeen in mashiinkii wax lagu ridqayay inaan wajaala laga keenay oo canab yar waxa weey 3 jir iyadoo wajaala laga keenay inanta kana fiisa ilaahda iyadoo reer Hargeysa 8 jir iyadoo weeyaan in marka from wajaale ilaa halka Hargeysa Hospital baa la soo waday iyadoo gacanta kula jirta aaladii in dibka labaad dhacay waxaan marka qaarkood aaladu dhibaatooyin gaarsiin waxa ka dhibaato badan muddadii ku jirayso oo soo looga saaro aad kaanaso iyadoo laftigeeduna dhibaato ay sii keeni karto in wax yeesho markaa maxay tahay xubnihii labadii hablood way kala duwan mid waxaan dhamaan wuxuu keenay inuu burburiyo gacanta hore oo dhan inta uu naqaan markaa maxay tolay ama wax ku qabsanay gacanta uu naqaano way burburtay qasab waxa noqotay markaa wixii burburay wixii dhibaato noqday in meesha ka saarno kaliya waxa hadhay markaa maxay inta mataana ilaano waana inuu inoo joogtaa waa arkay taala waana fiicantii xaaladii talabaadna waxay waafeysay iyada waxa weeyaan mishiinka waa laga soo saaray markii aniga soo gaadhay laakiin waxa dhamaaday dhamaan xubnaha oo dhan marka iyada waxa u badbaaday inta ilaahda markaa maxay tahay gacantan saddex qaybood baa loo qaybiyaa gacmaha waxa ku jira oo markaa la faxagan loo iyagu waxay qaar loo yaqaan carbalis iyo qaar loo yaqaan metacarbalis iyo phalanges waxa yiraahdaan oo markaa faraha inta wax ku qabsano iyo inta xiriirsan gacanta hore iyo gacmaha marka waxa iyada u badbaaday inta hore dhan way badbaaday laakiin meesha waxa ka baxay afartii frood hore dhan ma baxay agaasimaha guud ee cisbitaalka Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar
ayaa isaguna ka hadlay khataraha ay carruurtu inta badan la kulmaan iyo dhibaatooyinka soo gaadha ee loo keeno cisbitaalada. carruurta inta badan shilalka soo gaadha waxay noqon karaan qaar ama dhicida ama shil gaadhi ka soo gaadha ama shil uu isagu dhaco oo meel ka soo dhaco ama shilal kale oo badan oo waxaa jira qalabka maartay markaa ama wax lagu shiido markaa lagu shiido suqaarka iyo waxyaabaha inay carruurtu gacanta la galaan oo markaa carruuro badani ay muddadii u dambeysay cisbitaalka ay soo gaadhayeen. carruurtu waxaa kaloo ku dhici kara shilal ka mid ah inuu wax cabo ilmaha in laga ilaaliyo wax kasta oo markaa yaalla oo markaa cabitaana oo aan dee markaa khatar u ah ilmaha hadday tahay wax suna hadday tahay waxyaabaha markaa guba cunaha iyo guriga guba iyo afkaba gubaya waxyaabahaasoo dhan in laga ilaaliyo wax cabayo dawooyinka ka mid ah oo ilmuhu guriga ka qaadan karo cuni karo dawooyin khatar oo badan baa jira oo markaa ilmuhu hadduu qaato neef mareenka iyo kelyahaba wax yeelayo. marka shilalku waxa kaloo ka mid ah carruurtu inta badan geedaha ay fulaan marka waxay u keenaan jabniin. carruur badan waxaa noo timaadaa geed ka soo dhacday ama meel ka soo dhacday oo markaa gacmaha ka jaban inta badan ayaa yimaada. cisbitaalka guud iminka intan rabadaanta 2 xaaladood ayaa yimid oo ah carruur la gashay mashiinada wax lagu shiido ama lagu ridqo la gashay gacmaha marka carruurtii ay ku dambeeyeen in gacantii badh la jaro. Dr. Maxamed Xawaale iyo Dr. Axmed Cumar Askar ayaa fariin wacyigelin ah u diray waalidiinta si looga hortago dhibaatada iyo khataraha soo gaari karta carruurta yaryar ee guryaha lagu hayo. waalidka waxa u fiican carruurtu markay wax shiriidiyaan inay carruurta horta iska fogeeyaan sideedaba carruurtu dawo hadday noqoto iyo hadday noqoto markaa maxay tahay shay kale ama mashiin ay noqoto ama shay la isticmaalay carruurtu uu nugu shahay electriga kamid ah oo waxyaabaha kaaweedaha oo kale kuwan dabka ingelina fiishashka oo kale kamid ah mar walba carruurta in taxadir gaar la siiyo ayaa muhiim ah. ilmihi hadduu agtaada fadhiyo oo dhaqaaqo inaad ka daba dhaqaaqdo si aad u ogaato markaa maxay ilmaha halku marayo ama cidii kale aad ku balbiso dayaca kale siisa u yimaado waalidku inuu kaba maqayo carruurtaba qaarkood waxay keentaa noloshu inay ka baxdo oo maryaa inay isku qabtaan ama furaashada ku soo dhacaan oo naqas ku qabto. marka waxa la waalidka markaad isticmaalaysaan mashiinada wax lagu ridqo carruurtiina ka dheereeya muddada isticmaalaysaan waxaad ku isticmaashaan meel aan carruurtu joogin. haddii aad ka maaranto oo markaa macnaha waqtigii aad ku dhameystay waxaad ku qabanaysaa dabka ka saar meel beersandhig oo carruurtu ka arkayn. waxa kale oo laga faa'iideysanayaa program waxa jira dhibaatooyin kale carruurtu ku dhacay marka qaarkood gaar ahaan gawaadhida guryaha la dhiganayo marka qaarkood dhibaatooyin baa ka yimaada in carruurtu hoos galaan markaad baxayso haddii si fiican iyaga laftirkooda ay soo eegin carruurtu hoos joogto ama markaa cid markaa albaabka laga furayo qofaan markaa maxay tahay gacanta aanu saarin oo ilmihi aanu haynin waxa dhici kara la jiiraba. marka waxaan leeyahay waalid ilaahay baa wax ilaaliya Allahna oo ilaaliyo laakiin dayac inaga nigaymi in carruurteeda wax noqon waxa kamid ah markaa taxadirkaasi wax noqonaya in wixii khatara ee markaa qalaba ama mashiina ee lagu shaqeynayo in ilmaha laga dheeray oo meesha iman ama aan u soo dhawaan ama waxa laga xidho albaabka meelsha lagu shaqeynayo ay tahay meel ka xidhan ilmaha oo aanu gaari karin. taasi waa sida laga badbaadayo. waxa kale oo muhiim ah in laga ilaaliyo ilmaha wixii qalab ah isku jari karo ama mudi kara. waxa kale oo kamid ah wixii ay liqi karaan oo mesela ay kamid tahay waxyaabaha biraha ah ama lacagta ama waxyaabaha ay afka geliyaan oo dhan wuxuu doonahay in laga ilaaliyo waayo shay uu ilmahaasi liqay ayaa xalay in qoyska dhanka in karto xaalad emergency ama xaalad degdeg ah oo markaa ilmahaasi ama uu qalin ku dambaynayo ama uu dambaynayo in cisbitaal loola cararo. waxa kale oo iyadana muhiim ah in carruurta la eego markay ciyaarayaan iyo halkay joogaan iyo goobta inay tahay meel nabadgelyo ah oo laga ilaaliyo inaanay ku ciyaarin waxyaabaha maarta khatarta ah meelo markaa ama ay ka dhici karaan ama ay ku jabi karaan ama ay wax ka soo gaari karaan in markaa laga ilaaliyo. waxa iyadana muhiim ah waxyaabaha la ilaalinayo waxa weeyaan wixii suna ee markaa dareere ah ama kiniina ama dawo ah in ka badan waxa muhiim ah in meel lagu xafido oo ama kabar lagu xafido ama meel aanu ka gaadhin ilmuhu lagu xidho. cali maxamed xuseen cali wacays telefishinka saab hargeysa. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub.
abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.